السلام عليكم وساعتها ku xiran barteena youtube-ka telegramka oo aniga Shafii Daawud maanta waxaan falqeynaynaa Golly maxaa macquul ah isbuucan inuu kor siyaado mise inuu soo daato. السلام عليكم وساعتها ku xiran barteena youtube-ka telegramka oo aniga Shafii Daawud maanta waxaan falqeynaynaa Golly maxaa macquul ah isbuucan inuu kor siyaado mise inuu soo daato. Intaanan u gelin falaqeynta waxaan rabaa inaan ideysiiyo waxaa jira dad badan oo sii weydiiyay qaabkii iskaga diiwaan gelin lahaayeen linkiga aan ku leenahay FX Primas. Waxaa jira laba muuqaal aan ka diyaariyey muuqaal furo real account muuqaalkan waxaa uga hadlayaa qaabka aad iskaga diiwaan gelinaysid haddaadan account ku lahayn FX Primas. sidoo kaleeto muuqaalkan kaleeto iska diiwaan geli ahne waxaa kugu sharxayaa haddii aad account ku leedahay FX Primas qaabka aad linkiga iskaga diiwaan gelinaysid oo tiimkay uga mid noqonaysid. sidoo kale dad soo weydiinaya jiro maxaa lahaa videogan oo iska diiwaan geli marka hadda ku dhufatid qoraalka ama linkiga waxaad ka heli kartaa maxaa lahaa qaybta description waa kana hadda markaad videoga ku dhufatid show more markaad taabato waa kana inta ka helaysaa wixii faahfaahin qoraalka gmail-ka u diraysid sidoo kale gmail-ka u diraysid waa ka sidoo kaleeto linkigana waxaad ka helaysaa oo FX Primas maxaa lahaa muuqaalkan kale ayaa ka helaysaa balse laakiinse qofkii maxaa lahaa account ku leeyahay FX Primas oo account ku leh asaga uma baahna linkiga keliyata wuxuu u dirayaa user ID-gan ayuu gelinayaa marka sidoo kaleeto linkiga waxaa ka heli kartaa telegramka markaad timaadid qofka real account furanaya ka hadlaa markaad timaadid waa kana qaybtan description-ka ayuu ku yaalaa kadib waa ku dhufsanaysaa kadibna step by step qaabka iskaga diiwaan gelinaysidna waxaa kugu sharxay videogan ayaa kugu sharxa oo furo real account marka inaad daawato isku day. marka intaas kasoo gudbo Golly maxaa macquul ah isbuucan Golly hadda waxaa joognaa time frame-ka maxaa la 15 minute-ka sidoo kale Golly waxaa aragtiin isbuucii hadda la soo dhaafay maxaa la isbuucii ku horeeyaba Golly wuxuu ku jiray correction ayuu ku jiro oo laalaabasho sidoo kale waxaa jira qoraal ay idin la wadaagay Golly oo idinku dhahay maxaa la Golly ilaa 250 bps oo buy ah ayaa u dhiman kadib waa uu soo daadanaya Golly oo kana qoraalkan ay idin la wadaagay waxaa idin dhahay Golly 250 bps ayaa u dhiman kadib Golly waxa trend line-ka sare hadduu taabto waa uu soo daadanaya Golly wuxuu dhaqaaqay ilaa maxaa lahaa 70 bps 80 bps 100 bps ayuu dhaqaaqay ilaa 120 bps ayuu dhaqaaqay Golly hadda trend line-ka wax yar ayaa uga dhiman marka analyze garaynaysid Golly waxaad geysanaysaa time frame-ka waaweyn si aad u ogaatid jihada uu aadayo Golly waxaad ku ogaanaysaa maxaa lahaa intaanaad analyze garaysid ayaad waxaad ogaanaysaa Golly jihada uu aadayo marka Golly hadda waxaa arkaysaa in trend line dhowr trend oo ku saarmo waad saaranaysaa marka hadda sidaas u saarid sidoo kaleetana hoos waad saaran kartaa oo maxaa lahaa ilaa waxaa ku ogaan kartaa qiimaha trend line-ka waa like support and resistance camal sidoo kale markii Golly maxaa lahaa saas u saartid maxaa lahaa journal dhowr trend ah Golly hadda waxaa arkaysaa in maxaa lahaa uu sameeyey double top sidoo kale markuu intiimaa laga celiyay uu jibiyey bullbaa uu ku sameeyey markaad fiirisid sidoo kale waa uu ka dhaqaaqay sidoo kale markaad fiirisid intana maxaa lahaa support ay ahayd oo waa kana waa uu cugsaday kadibna waa uu ka dhaqaaqay Golly hadda waxaa arkaysaa trend line-ka ayaa wax yar uga dhiman Golly markuu trend line-kaasi tago waa uu soo daadanaya sababtoo ah Golly wax badan ayuu buy soo aaday sidoo kale hadda markaad fiirisid lacagaha kale USD-yada kaleeto markaad fiirisid badanaa horta waxa waaye Golly lacagaha kale uu ka duwan yahay balse uu ka dhaqaaq sidoo kaleeto uu ka dhaqaaq badan yahay tusaale ahaan oo kale hadda USD Jeff oo kaleeta
buy kale buy oo kale haday tahay goldi waxa waa sell balse laakiinse marar qaar oo kale waxaa dhici karto USD Jeff oo kaleeto oo buy goldi in uu buy aad kadib uu soo daato mar walba say gold waxa uu ka dhaqaaq badan yahay marka hadeerta goldi markuu trailankaas ku dhaco uu soo daadanaya oo goldi macquul ma in uu meeshaas jibiyo oo korkaasi sii aado waxaa laga yaabaa in uu soo daato markuu meelahan camal yimaado kadib haddana uu soo laabto markaas uu jibiyo oo kor aado sidoo kale waxaa imaanaysaa 4 hourki 4 hourka markaad timaadid hadda waxaa arkaysaa goldi in wax yar uu kaaga dhiman yahay trailanka hadda markaa cabirno waa kana waa 120 bps markaa qoraalkan soo dhigayay waa kana goldi waxaa dhahay 250 bps ayaa ka dhiman wuxuu dhaqaaqay ilaa 130 bp camal ayuu kor u dhaqaaqay marka goldi markaa fiiri sidoo kaleeto 4 hourka trailine up train ayaa ku saarmay trailankaaga sidan waa u saara kartaa oo hadeertan sidan waxaa waaye goldi waxaad dhihi kartaa intaa laga celiyey sidoo kaleeto inta waa laga celiyey inta haddana laga celiyey oo toos uga dhaqaaqo uu kusoo laabto mar kale kadibna kor ayuu ka aaday goldi hadda markuu xag ku dhaco wuu soo daadanaa inta camal ayuu imaanayaa kadib hadduu buy sii yahay goldi wuxuu sameynayaa waa uu soo laabanayaa meeshaas ayuu ku laalaabanaya kadib waa uu jibinayaa kor ayuu sii aadayaa sidoo kaleetana waa macquul markuu xag kasoo daato oo inta yimaado waxa uu sameynayaa waxyar ayuu laabanayaa inuu sidaas sameeyo uu soo daato sidoo kaleeto maxaa la lahaa goldi hadda waxaa arkaysaa in maxaa la lahaa waxyar ay uga dhiman tahay marka hadda waxaa sugaysaa goldi ilaa iyo xagga inta uu ka gaarayo waad sugi kartaa hadda waxaa ka dhiman waxyar ayaa ka dhiman ilaa iyo 130 bps kadib markuu xagga gaaro trailankaaga sare ku taabto 1 hour confirmation uu ku sameeyo kadib sell waa soo qaadan kartaa ilaa iyo inta waad ka faa'iideysan kartaa ilaa 1805 oo kale taa oo imaanaya ilaa 1800 sidoo kale goldi maxaa la lahaa in uu baayahay waxaad kusii ogaanaysaa tusaalahaan trailankii sidan ayaa u saaray sidoo kaleetana sidaas u saari kartaa sidan waa uu saxan yahay oo waxaa dhihi kartaa hadeertaani trailankeyga kuwa meeshaan laga celiyey labana meeshaan laga celiyey oo markaan waa kana uu soo jibiyey waxyar ayuu kasoo daatay haddana markaan ayuu ku laabtay feeg oo noqday xagga ku laalaabtay waxyar ayuu soo daatay markaan hadda waxaa arkaysaa in trailankii daily kasoo saaranay oo down trainka ahaa iyo 4 hourkii oo lasoo jibiyey in isku meel ku beegmeen oo bullback markuu ku sameeyo goldi uu soo daadanayo sidoo kale ilaa targetka oo imaan karaytana waxaad ku fahmaysaa trailankaaga ayaad sidaan dhehaysaa mar kale ilaa iyo targetka oo imaan karo goldi waa kana markaa trailankaaga sidaan dhahdid goldi hadda waxaa arkaysaa trailanka in 2 mar laga celiyey markaan waxyar ayaa kor loo dhagaajiysan marka uu kusoo laabtay marka waa kana ilaa iyo hadda markuu xagga gaaro goldi waa uu soo daadanayaa ilaa iyo targetkaas oo ayuu imaanaya kadib markuu inta yimaado xoogaa ayuu laabanaya meeshaas uu ku laalaabanaya hadduu sal yahay aa ku dhahay oo uu daadanaya hadduu baayana wuxuu sameynayaa xagga ayuu tagayaa kadib meeshaas markuu ku laalaabto ayuu kor aadaya sidoo kale goldi waxaa sii geysan kartaa timeframeka 1 hourka timeframeka 1 hourka markaad geysid hadda waxaa ogaanaysaa goldi hadda markuu baayigan aadayay tusaalahaan oo kaleeto iska muusan aadin oo wuxuu sameeyay ayaa ku tusaya hadda markaa sidaas u saaratid trailankaaga markaa sidaas u saaratid sidoo kale waxaa sameynaysaa goldi waa kana isbuuca hadeertan wuxuu ku jiray correction ayuu ku jiray oo wuxuu u sameynaya goldi inta ayuu ku laalaabanaya markaad fiiriso waa kana waa uu jibiyey marka uu jibiyeyna waa kana bullback ayuu ku sameeyey sidoo kale 2 candle oo rejection ayuu sameeyey oo buy sidoo kale marka uu jibinayna waxaad ku fahmaysaa inuu buy yahay waxaad arkaysaa in candle full oo buy uu ku jibiyey kadibna still goldi waxaa arkaysaa inuu buy sii yahay oo waxa uu ku socda ayaad fiirinaysaa tusaalahaan oo kale hadeertan goldi inuu buy sii yahay waxaad ku fahmaysaa rejectionada uu sameeyey candle walba fiiri marka uu xirmay rejection ayuu noqday rejection
midka candle buuxa ayuu ku xirmaday kaas candle buuxa ayuu ku xirmay midka hadda furanne rejection ayuu noqday kaas hadda furanne rejection ayuu noqday sidoo kale waxaad buygaas waa kasii faa'iideysan kartaa oo scalping ayaa ku faa'iideysan kartaa waxaad sameynaysaa kaliya qaabka ugu faa'iideysanaysid waxaad sameynaysaa waxaa cabiranaysaa maxaan lahaa maxaan lahaa wiiga ayaad cabiranaysaa oo maxaan lahaa resistancega sidoo kale bodigana waad cabiranaysaa ama markaad sidaas u cabiratid gold waxaad arkaysaa hadeertaan in uu bodigii hadda uu soo jibiyey waxaad suganaysaa intuu wiigaasi ka jibinayo intuu meeshaan oo kale buy waa uga qaadan kartaa markuu suuqa furmado waa clear buy wuxuu sameynayaa xagga ama waxaad sugi kartaa markuu xagga jibiyo oo kusoo laabto ilaa xagga oo kale u yimaado buy waa uga qaadan kartaa meesha ama xagga oo kaleeto area uga qaadan kartaa markuu rejection sameeyo marka goldly isbuucan sidaas ayaa macquul sidoo kale insha Allah wiiga hadeertaan signalkiisa maanan soo dirin sababtoo ah xitaa waan idiin sheega oo kamaanan soo hadlin goldly waxa uu ku jira waad aragtaan oo laalaabasho ayuu ku jiray marka insha Allah isbuucan goldly sidaan ayaa la filayaa in uu sameeyo oo ilaa targetkaas uu gaaro 858 oo kale ilaa 60 uu gaaro ama ilaa 57 oo kale uu gaaro trendkaas markuu soo taabto oo soo aado goldly insha Allah waan idin soo diri doonaa signalkiisa fadlan haddii aad channelka cusub tahay oo markii kuugu horeeyay ay tahay subscribe saar sidoo kaleeto muuqaalka like saar si ay noogu noqoto dhiirigelin waana mahadsantahay